madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay laamaha amniga howlwadeenada caafimaadka iyo hay'adaha gurmadka degdega iyo maamulka gobolka Banaadir kaalintii ay ka geysteen gargaarkii loo fidiyay dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho maalinnimadii Khamiistii ahayd madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku booriyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulankani inay muujiyaan isku duubni isla markaasina garbaha isqabsadaan una istaagaan sida ay u cirib tiri lahaayeen kooxaha nabadiidka ah oo qaraxye ka geysta gudaha dalka Soomaaliya waxaanu yiri madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidanka geesiinta ah oo runtii ka qayb galay hawlgalkaas gurmadka ah oo lagu badbaadinayay shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo qolooyinkan khawaarijta ah oo manaxayaasha ah ee fursad kasta ay helaan kuleynaya caruur iyo ciroole iyo shacab iyo cid walbaba aanan u abayeelin qofna waxay raadsanayaan waa xaqiiqo oo dawlad ma aha waxay raadsanayaan ma aha golo wasiiro ciidamo gaar ah ma aha waxay raadsanayaan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed marka ciidamada ka hortagay oo xaqiiqatan naftooda u huray oo sida geesinimada leh ula dagaalamay aad iyo aad yani kaga mahad celinayna intii dhimatayna Allahu naxariisto xaqiiqatan waajibaadkiina gudateen waxaan naga mudan tihiin abaal yaa naga mudan tihiin iyo mahadnaq waxaan rabaa inaan u mahad celiyo isbitaalada dadka la geeyay ee dhaawaca ahaa isbitaalo dhowr ah yaa runtii aad iyo aad u shaqeeyay iyo dhakhaatiirtooda hadda anaga Soomaali baan nahay kulli ma wada sheegayno isbitaalada laakiin aan ka soo qaado isbitaalka Erdogan aan hore loo oran jiray Digfer oo dadka waaleena Turkiyiinta ah ay maamulaan iyagoo dalkoodii nabad u yahay ay dalkoodii joogi karaan inay u soo horeen naftigooda maxaa yeelay wax nagu dhacaya iyagana waa ku dhici karaa iyo dhakhaatiirta habeen iyo maalin u soo jeeday inay badbaadiyaan shacabkoodaas laga gardarnaa waxba aan galabsan runtii dhiig raadintooda iyo inaad badbaadisaan ناصر عبد القادر عبد الوهاب ناصر تلسمي بدعس TV مقالة دارقيسا